shirkadda casriga ee Somtel ayaa maayarka caasimadda Hargeysa waxa ay ku wareejisay furaha aqal kaasi oo ka mid ahaa 10,000 ee hadiyadooda shirkadda Somtel ugu tala gashay macaamiisheeda. Furahaasi oo hayn doono maayarka caasimaddu kuna wareejin doono qofka ku guuleysta hadiyadda aqalkaasi oo ka kooban 4 qol iyo agabkiisii. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxa waaxda ganacsiga ee shirkadda Somtel Samiir Ducaale. dhammaan ummadana daawanaysa reer Somaliland iyo sidoo kale macaamiisha Somtel maanta halkan waxaynu joognaa ballan aan hore u qaadnay inaanu oofino oo ahayd gurigii lagu guuleysanayay ee ka mid ahaa ama boqorka uu ahaa 10,000 hadiyadoood ee aan ugu talagalay macaamiisha sanadka 2021ka gurigii maanta maxay ahayd inaanu wareejino oo aanu ku wareejino maayarka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge sida wada ogsoontihiin shirkadda Somtel maayar waxay dadka maxay ahayd wadanka ku celisaa waxyaabo badan bay ku celisaa dadka reer Somaliland ama macaamiishu meel kasta joogaanba laakiin tan maanta u joognaa way ka duwan tahay ku celinta ama waxyaabahan maanta ku celinaa waa mid ka duwan taas waxay gaar u tahay macaamiisha shirkadda Somtel sanadkii hore waxaanu qaybinay 5,000 hadiyadood oo ay ku jiraan 10 gaari oo Hyundai ah oo ay ku jiraan hadiyado kale oo qaali iyo ciidda ka badan sanadkan maanta waxaanu go'aaminay inaanu sanadkan 2022kana inaanu macaamiishayada ku celino 10,000 hadiyadood 10,000 hadiyadood aanu ku celinayna macaamiisha waxa ugu qaalisan maanta hantidan ma guurtada ugu qaalisan gurigan dhex taagannahay diyaarsan oo goglan oo aanu ku wareejin doono markaa macmiilka shirkadda Somtel ee hela aanu ku wareejin doono ha joogo meel kasta wadanka Somaliland ha joogo maadaama tayadu markaa duqi magaalada gurigana uu ku yaala maxay ahayd caasimadda Hargeysa ku yaalo waxaanu maanta kugu wareejinaynaa furihii gurigaasaan kugu wareejinaynaa si hadhow toole macmiilka ku guuleysta nasiibkiisa u hela abaalmarinta nasiib u hela adigu aad ugu wareejiso annagu gurigii waana kanaga kan dhex buu naga yahay duqa caasimadda haya ilaahay waxaan u baryaynaa inuu u barakeeyo macmiilka ku guuleysan doona macaamiishayada kala joogta 6 gobol ee wadanka Somaliland kala joogta kii helaaba waa annaga waa macmiil buu noo yahay waxa muhiim ah in tartanka iyo abaalmarintaas ay noqoto mid daahfuran oo maxay ahayd oo la wada og yahay marka daahfurnaanta anagoo dhiirigelinayna mudane maayar ayaanu ku wareejinay wax maxay ahayd ku xidhan qof shuruuda ku xidhan macaamiisha ma jirto aan ahayn inay yihiin macaamiisha Somtel oo ay isticmaalaan adeegyada maxay ahayd Somtel ee ku hadalka iyo internetka iyo dahab oo qura insha Allah marka waxaanu soo gabagabeynay oo maanta khamiis aanu gabagabeynay kaltankii afraad waxaanu qabanaa kaltano badan marka kaltankii afraad oo hadda waxaanu bixinay 4,000 hadiyadood baan bixinay 6,000 hadiyadood baa hadhay gurigu ka mid yahay baa hadhay marka 6,000 macaamiishu way u siman tahay meel kasta ay joogaan insha Allah gabadha wiilka odayga ama maxay hooyada ku guuleysata maayarka ayaa u haya furihii guriga u haya biritool jimcana waxa bilaami doona marka kaltankii shanaad baa bilaami doona ee tartanka abaalmarinta 10,000 hadiyadood aan ugu talagalay macaamiishayada dhammaan waanu mahadnaqaynaa macaamiishada aan jecelahay sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge waxaan sugi karin oo ku faraxsanahay in qof muwaadina reer Somaliland uu heli doono guri uu ku noolaado oo qurux badan oo isagu uu leeyahay dadka wasaka ahaan waa mas'uuliyaadkeega qof kastoo muwaadini dhul uu degay inuu helo kuwa aan dhisan karina ay helaan waliba dhulkii oo dhisan waa riyo weyn laakiin way fog tahay xilliga ay suuro galayso marka in qof muwaadina nasiibkiisa uu kaga heli doono companyga Somtel gurigan quruxda badan ee gudihiisa arkay oo waliba goglan basugi karaya maalinta qofka muwaadinka inaan farxadda la wadaago oo furaha ammaanada ah ee uu hayo aan gacanta ka geliyo dabeetana aan ogaaday in qof reer Hargeysa ama reer Somaliland uu maalinta helay guri isagu iska leeyahay dhul isagu leeyahay uu degan yahay oo ku noolaanayo maalintaas maalin qiimo leh ayay noqon doontaa marka furaha in Somtel lagu soo wareejiso oo aan sugo qofka ku guuleysta oo dabeetana ku wareejiyo aniga maalinta farxadda ugu weyn waa maalintan ku wareejiyo furaha qofka muwaadinka hooyada inanta odayga maalintaas ma sugi karo marka furi waan hayaa gurigana wuxuu ka mid yahay guriyaan hadda hayno ee muwaadinka hela aanu ku wareejin doono nasiib wanaagsan baan u rajaynayaa dhammaan macaamiishiina
waxaanan ilaahay ka baryayaa qof mudan oo u baahan oo baahi u hayso guriga guri ahaan ugu baahan meel u dego horeba u lahaa sabool ahaa aan dhisan karin aan dhul iibsan karin aantoon ognahay Hargeysa cidina dhul ma goynayso waxaan ducada u gaar yeelayaa qofka baahida gaarka ah oo qaba ilaahay waxaan ka baryayaa qoys aan lahayn meel ay degaan iyo guri ay ku noolaadaan inay ku guuleystaan oo macaamiisheena ka mid ah waanan maalintaa insha allah aan wareejinaynana waan joogi doonaa halkan dabeetana waxaan qayb ka noqon doonaa farxadda qofka wejigiisa saaran inuu yeeshay guri uu isagu iska leeyahay waxaan rajaynayaa gurigaas soo goglan oo qurux badan oo ilaa taagiga maca biyo ugu jiraan qofka oo haddaad doontaan macawciyadda iska sii taalo inaan qoyska keeno oo markaa caruurtii iyo hooyadii iyo odaygiiba markaa ay soo galaan ama uu noqdo inan dhalinyaro ahoo guru diyaar ahaa oo markaa ay kuba aqal galaan oo maaragtay arooskooda halkan uu ka dhaco guulad cunaabi MM TV Hargeysa